وصح وخطر بنتلان إن هنتدي أي إلكتروني كجرت ولو أيامها كان ودعاء الله واحد صوب حي دجالك يقولك أن قان دجال يرادو دجالك دجالك ما عنده وضح كده عشان مشان أدونك يا هل مربى وحى هاي لحظي سيستم كي سوفت وير كي عصبتها الذي يوروب ديارته حتى دكامدي لو حلقة يبزنا بهالمر عركة دولك يستاجي ورتوا خطر سو صعود wax badan baa la fududeeyay laakiin lacagtan ku wada jirta bahash maxaa la yiraahdaa telefoon ku jirta anigu waxaan tagay mar aan deegaamo badan booqanaayay dad lacag haysta oo waxba gadan karin maxaa yeelay meesha hadda dawladda wixii khuseeyay la weydiin lahaa madaxweynuhu ateen aan rabnaa bay yiraahdeen war ateenada maxaa ka galaa eri golis weeye waxay dhaheen wixii lacagaha halka lagu riday annaga waxba kala gadan karno shaaha ma soo karno horta arrintaas waa khatar jirta laakiin dawladda Puntland khatartaas way u bareertay inay tiraahdo shilin Soomaaliga sidoo ku jiray lagu socon karo shilin Soomaaliga waxaan ugu nimid marka aniga xilka qabanay 2019 marka aan joojinayno wuxuu ku socday 26 wuxuu ku socday 60 halkii dollar waxa noo muuqatay dadkii hal mar in lacagtoodii intay guurto hantidoodii warqado loo dhiibo hadhown ay waxba u goyn karin waxa ogaataan qaarkiin waxa laga yaabaa waa gartiin baahida un baa ka tarjumaysan laakiin dalalka arkay khatartaas oo kale oo lacagtoodii hakiyay oo dollar u guuray dalal badan oo dhowr jira Afrika Zimbabwe waa ka mid ahay Latin America laba wadan baa ka ahay dalka Argentina baa hadda qarka u saaran inuu dollar qaato sababta keenaysa waxa weeye markay awoodda inflation-ka aadan xakameyn karin dadka hantidooda inaa baartid ilaalisid weeye dawladda Puntland hadda waxa u yaala 7 bilyan wasiirkii maaliyadda waa joogaa markaasna bangigu joogay 7 milyan dollar lacag u dhiganta oo waraaqa ah oo shilin Soomaaliya noo kaydsanad oo meelaan geena garan laana dawladda dhaxoo naga bedesha oo mid kale noogu bedeshana ma hayno hadda idinka inay deyn lahayn hadda wax ma iibsan karno iyo cash ma haysanaa leedihiin laakiin cayr baad noqon lahayd marka hadii lagu sii deyn lahaa horta arrintaas waxay ahayd go'aan qaran markii la qayliyay cid kasta oo dhaqaale wax ka taqaanaan u yarnay madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Farwal oo bankar haabaan baan guddi madax uga dhignay wasiirkii hore maaliyadda Faarax Al-Sharaar u yarnay macallimiintii jaamacadaha u yarnay bal halkeenaan nirkaa ka duwanaada haysan waxa la isku dayay in la yiraahdo maxaa la yiraahdaa si shilinku u socdo lacaga dhigta shirkadihii waxa la isku dayay in la yiraahdo $1 wax ka yar wax lagu gadan karo si loo dhiirigeliyo in shilinka la isticmaalo intaas oo muxaawala la sameeyay waxay ka badan weeday go'aankii hore ee dawladdu qaadatay inuu shaqeeyo waxaan ku faraxsanahay go'aankaasi inuu hantidii dadka masaakiinta ah aysan ceyrtoobin oo niman hadda ma rabo magaalooyinkana magacyadooda sheegay laakiin Puntland ka baxsan intay mishiino dhigteen bay waxay daabici jireen lacagta markaas intii la keenaa dollarka laga qaadan jiray dadkan horta waxaan ka hor istaagnay waxay ahayd in dalkan uu ku dhaco cayrnimo 7 milyan annaga qaadanay laakiin waxaan xakameynay 100 milyan oo sidaas oo kale loo dhici lahaa hadii la sii deyn lahaa oo la dhihi lahaa yaa nagu dhiiran horta qodobkaas qodob dawladdan badbaado u ah waa dhaqaalaheeda mana u maleynaayo in go'aan khaldan aha inta wax garanaysa oo jaamacadaha adduunka ka dhigta maalin dhaweyd nin baan arkay jaamacadda Mareykanka ka dhiga economist oo reer Puntland hadalkii ugu horeeyay uu dawladdu ku amaanay waxa kamid ah go'aankaas aan qaadanay si aan dadka lacagtooda u badbaadin dabcan dadku ma wada garan karo laakiin khubarada dawladdu go'aankaas markay qaadatay iskama qaadan